Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan aad ka daawanaysaan ama aad ka dhageysanaysaan waa janaalka Raweele Axmed. Run ahaantii dhiirigelintiina iyo wanaagiina iyo waqtiga aad isiinaysaan aad ba ugu mahadsantihiin. Sidoo kale waxaan iga codsanayaa inaad ii sameysaan subscribe ama sidoo kale likes ama comment aad ugu mahadsantihiin. Maanta waxaan ka hadlaynaa qiso xaqiiqi ah kana dhacday wadanka Morocco gaar ahaan Diwaar. Run ahaantii qisadan magaceeda waxaa la dhahaa jacaylkii qadiimiga ahaa ama xubbul qadiim si carabtu u dhahaan. Qisadan run ahaantii waxay dhacday 2010 waxayna ka dhacday magaalada Diwaar sidii hore aan igu sheegay. Qisadan waxay ku socotaa gabar la yiraahdo Fatima waxay ku nooleed magaaladaas waxayna ahayd gabdhaha ugu caanka ah ama caanka ay ku noqotay waxay ahayd quruxdeeda oo Ilaahay siiyay rabbaani ah. Gabadhaasi waxaa soo doonay rag badan ayaa soo doonay laakiin Ilaahay calafkeeda wuxuu ka dhigay wiil ka mid ah oo magaalada degan. Runtii way guursatay 2010 waxay yeelatay reer waana ku faraxsaneed. Ilaahay wuxuu kala siiyay wiilkoodii ayay korsadeen. Maalin maalmaha ka mid ah ayay gabadhu waxay go'aansatay inay familkeeda u laabato oo si u saacido iyadoo aanan xumaan ahayn ayay odageeda ka codsatay. Reerkeedii ayay dib ugu laabatay si u saacido inkastoo ay u tagi jirtay sida qisada lagu sheegayo gabadhan oo mar walba u saacidi jirtay oo maadaama ay ahayd gabadha reerka ugu weyn. Maalin ay casar ay tahay ayaa iyadoo gurigoodii ay joogaan ayaa wiilka yarka ahaa wuxuu jeclaystay ama ilmaha waa garanaysaan banaanka inuu ku ciyaaro. Wuxuu la ciyaaray ciyaalka dariskooda ah. Isagoo la ciyaaraya ayaa nin wadada soo maray. Ninkaas oo lagu magacaabayay Cimaad. Runtii wiilka wuu qurux badnaa marka wuxuu ku yiraahday wiilka ayaa dhalay waxa lagu yiri Fatima dhashay. Markaasuu wiilkii uu eegay Allah sida hooyadiisa ayuu indho qurux badan yahay oo runtii hooyadiisu eg yahay hooyadiis oo iyada is dhashay. Runtii wiilkii ayuu wuxuu eegay si qaldan. Hooyadii ayaa hadalkii maqashay banaanka ay u soo baxday way eegtay mise ninkan la taagan gacanta ayay wiilkeeda qabsatay guriga ayaan la gashay iyadoo xanaaqsan. Subaxdii ayaa gabadha hooyadeed ama wiilka iyadiis ayaa banaanka u baxday. Waxay aragtay ama ay doonaysay biyo magaaladaas marka biyo la'aan ka jirtay biyaha go'a. Marka meel biir la yiraahdo ama ceel saal u garanaysaan ayaa biyo ay ka doonatay si subaxdii aroorti u soo qaadato oo isticmaalaan. Biyihii intee ku maqneed ayay waxay ilowday albaabkii hore inay xirto. Albaabkii oo furan ay ka baxday. Biyaheedii iska soo gadatay iska soo qaadatay dadna xaafadeedii ku bay timaaday horeyna ka seexatay ayadoo aan waxbana tabinin. Laakiin halkaas waxa ka baxay wiilka yaraa banaanka ayuu u baxay. Hooyadeed ilmihii dhashay ayaa soo kacday. Waxay aragtay wiilkeeda inuusan joognin oo guriga ka maqan yahay. Islaantii qayladii ayay ku soo kacday hooyo wiilkeyga ma hayo hooyo wiilkeyga ma aqaan xagee buu aaday uu ila hurday ma hayo. Waxa dhacday gabadhii inay wiilkii la raadiyo dariskii la raadiyaan qisadii ay sii dheeraato wiilkii la la'yahay meel laga raadiyo la garanaynin. Waxay u direen boolisku saan u garanayno 24 saac markuu ilmuhu ama ka soo wareego baa ayagu ay raadiyaan. Xaafadaha baadi goob loogu raadiyay waa la waayay. 4 bari markay ka soo wareegtay ayaa meyd la arkay ilmahan la eg ah. Booliska iyo waxa u tagay sheekhyada maxaafada waxay soo arkeen ilmihii. Hooyadii ayaa u yeereen iyo ayadii iyo aabahood guriga ka soo kaxeeyeen waxay geeyeen meel geed ah oo lagu qariyay ilmihii. Waxa dhacday haday sidaa ahayd gabadhii waxay aragtay ilmahan inuu ilmaheedii yahay. Iska hooyo way oyday. Waxa la yiri okay booliska la isla tagay waxa la yiri ilmihii markii la aasay ilmaha yaa dilay taxqiiq waxa laga qorayaa qoraal baa laga qorayaa qoraalka ayaa laga qoray. muxuu ahaa wixii anagu wax cadow ma leheen
muxuu ahaa ilmahana waxa lagu arkay waxyaalo khalad ah ama in la faraxumeeyay waxa la ilmihiin saasa lagu sameeyay saasa dhacday ka bacdina waa la dilay geedkaasaan la dhigay gudihiisana sanbabadiisana waxaa lagu arkay biyo ma garan karno waxaasaa yeelay gabadhii gurigeeda ayaa iska timi mar laga soo wareegay 2 beri ayaa waxaa xasuusatay ninkii maalintii ku lahaa wiilkeeda ama ku dhahay uu qurux badan yahay waa kan waxay u tagtay ninkaas ayaa maalinta ilmahayga subaxda la weynay galabtii ka horeysay ayuu arkay saasan hadallada khaldan ayuu ku yiri ninkii yaa la soo qabtay waxa la yiri farihiisa la baaray wixii anigu gabadhan dhowr jeer baan soo doonay gabadhan aniga haddaan soo doonay run ahaantii way diiday reerkoodana way diideen anigana qof aan jecelahay ilmihiisa saa uma galeen bala sheeko iska hadlay waa garanaysa qof boolis la geeyay ka baxdina waxa la yiri farihii marka laga qaaday khalaas iska tag gurigaaga aad waxa la yiri ninkan waxba kuma hayno laakiin waan baareena adu ilmaha ayaa baaha aan baareena adu hadalka inta iska fahma waa la baaray ilmihii deecaanadii hore laga qaaday iyo baa la isku baaray danna waxaa dhacday in uu noqday because ninkan farihiisa waa laga waayay in uu ninkaasi khaladka u galay waa la soo qabtay waxa la yiri adaas yeelay danna wuxuu yiri waa sameeyay waxaana ku sameeyay ilmaha oo banaanka wareegaya aniga igamaysan ahayn bi yiraahday ilmaha intaan soo qabsaday inaan saas sameeyay laakiin asagoo iyadiis daba socdo oo banaanka u soo baxay oo biyaha u socda iyo anigoo biyaha u socda ayaa iska hornimi ka bacdina waa qaatay gurigeygan geystay marka ilmihii geystay indhaheedii iyo ayadii iyo buu ila ekaaday marka niyadeedii waxaan gashay ilmahan haday shalay ku guursan lahayd ilmahan ilmo u eg ayaa dhali lahayd kan xaasnimo iyo xiqdiba ay galay saasaan ugu sameeyay ka bacdina waxa ogaaday ilmihii waa dilay waa ka takhalusay waxaan gashay haan guriga ii taalay baan dhex gashay suu ma aragtay aan laygu arag marka booliskii baan waxaan ogaaday inay guryaha baarayaan ka bacdina booliskii ayaa markii intuusan ii imaan baan qaaday geedkaasana geeyay okay ninkii waa la xukumay sijni mu'abbada lagu xukumay jeel noloshiisa oo dhan ah laakiin waxay ku wanaagsaneed in la dilo qisada intaasan kusoo koobaya inkastoo aan aad u soo koobay oo aan diidanaa inaan daqiiqadaha ku dheereeyo aad ba u mahadsantihiin kun jeer